dawaafkiioo dhan intuu dawaafayey wuxuu ku ducaysanayey ilaahu dhul gaala ha igu dilin, ilaahu dhul gaala ha igu dilin. ducadiisu intaas u badnayd. dhakhtarkii weliba dhakhtarkii khaaska ahaa baa ii jawaabo wuxuu igu yidhi wax aan kuu sheego ma garanayo, waxaan keliya kuu sheegi karaa maanta iyo meeshaan ilaahay inuu u doortay bas. intaa markuu kana yidhi dhakhtarkii kale wuxuu igu yidhi mumaridkii la joogay wuxuu ii sheegay aakhira kelima talafada biha, kelimadii ugu dambayso ku hadlay shahaadat an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah. waxaa ugu maqaalaa waxaa isugu timid 17 dhakhtar. aakhirkii ugu dambaysa wuxuu yidhi inta kale ha layga bixiyo hal dhakhtar, dhakhtarkii oon isaarka dhakhtarka ka ah. dhakhtarkii wuxuu kula dardaarmay beri salaada subax ama salaada ciidda maalintaas 8aad oo mino uu joogo ayaa sheekha xoogaa waxaa ku dhacay tabaryari badan, tabaryari. subaxa carafa la aadayo baabuurka waa la qaaday, waa la saaray sheekha, waa la fuliyey. marka qoladii waday waxay yidhahdeen sheekhaan isbitaalku geyno. wuxuu yidhi maya, carafa igeeya, markaad carafa igeysaan wixii ka dambeeya saad rabtaan iigu taliya, laakiin carafaha la igeeya. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بدن وسود هذا الله ينبرك مالك استود دونك جوكتان الله ينشرفه. إن سدا عاد نوجبرتين عدد هيت إبراهيم شو حاجري نوس عجري وها سؤالها سفيرك. maanta marka waxaan ku wareysay jirnay asalkii culimada nool markaas taariikh nololeedkeeda barashadooda cilmigooda iyo akhlaaqdooda inaan sulukiyadkooda aan barano ayuu ahaa barnaamijkaasu. dabcan waa inoo soo doonaa sida aad naga barateena culimada taagan golka ama safar nagu imaata ama aan live ku qabano ama aan dibad joogto ku qabano ayaan ku soo qaban jirnay. waa inoo soo doonaa biidna raxmaan. laakiin maanta waxaan jeclaanay inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed intii taqaana way taqaana intaana aqoon inaan barno. waxaa jiray sheekheena weynaa Sheekh Maxamed Rashaad dad badan bulshada Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inaysan garanaynin, waxaa laga yaabaa dhalinyarada da'da yar hadda soo kortay ama 2000 wixii ka dambeeyay dhalatay inaysan wada garanaynin. waxaa laga yaabaa 2013 iyo 14 iyo 15 iyo 16 iyo 17 bulsho badan inaysan wada aqoonin. laga yaabee social media qaybeero clipyadiis in la soo dhigo laga yaabee. marka waxaan jeclaanay inaan barano taariikhdiisii koobneed ee macaaneed oo adduunka kaga tagay intuu noolaa taariikhyaadkiisii. waxaa jirta sheekheena oo la socday oo walaalo ahaayeen qaraabana ahaayeen oo in badan isla kulmi jireen waxbarashada in badan isla wadaagi jireen ayaa jirta in uu taariikhdiisa garanayo. marka waxaan jeclaanay maanta inaan sheekheena taariikhdiisa Sheekh Maxamed Rashaad Allah u naxariisto inaan barano. meel fiican ayuu ku tagay, meel wanaagsan ayuu ku tagay, arday badan uu ka tagay. dabcan waxaa dhici karta bulshadii oo markaa la deganaa ee wadankii Canada uu jooga ku noolaa markii hore aysan bulsho badan ka faa'iideysan way dhacdaa. marka inaan inta badan Soomaalida kasta adduunka joogto aan barno ama aan baranaba taariikh nololeedkii koobnaa ee adduunka uga tagay ee sharafta badneed inaan wax ka ogaano meesha uu ka soo hana qaaday waxbarashadiisii da'diisii wax badan oo uu soo joogay inaan ogaano ayaan uga baahanahay barnaamijkan insha Allah taala. waxaan ka codsanaynaa inaad sii faafisid oo sii sheegareysid maadaama waxa wanaagsan in la sheegareeyo qofka soo gudbinaya iyo qofka sii sheegareynaya dabcan waa isku ajar, qof kastana ajirkiisa ayuu helayaa. marka inaad sii sheegareysin oo walaalaha badan sii gaarsiisin laagna saartin ayaan ka codsanaynaa. maanta marka waxa suuragal inoo ah oo taariikhdiisa inoo sharxi doona Sheekh Muuse Macalin Daahir Aways oo hore uga barateen ama hore aad uga aragteen intii hore aragteen waa laga yaabaa inay aragto taariikhdii Sheekh Muuse Macalin Daahir Aways. saas daraadeed waxaan ugu kalifay inaan barnaamijkan keeno wuxuu yahay dadkii daawada qayb kamid ah ayaa wax inaga codsadeen ay dhaheen
maadaama sheekh muuse ay aqoon isu lahaayeen qaraabana ahaayeen walaalana ahaayeen in la isu keeno armay qurxoon tahay taariikhdiisa ninka laga helo armay qurxoon tahay marka waxaan jeclaysanay inaan sheekh muuse codsigaas u gudbino codsigana sheekh muuse waa naga aqbalay oo taariikhdiisa oo inoogu waramo noloshiisii intuu ka yaqaanay ustaad marka soo dhawow wala waay wala barakallahu fiikum Allah yahdika alaafiya Allah ku barakeeyo Allah ka arnaqdo waqtigaada qaaligan si sama kaaga mahad celinayna ustaadi sheekh Ahmad Rashad maxaan ka naqaanaa taariikhdiisa maxaad ka garanaynaa soo dhawow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شيخ هرش مجلس محمد رشادنا اللقب كاس وحاو بحي شيخيس وكنت جدون هدي إلهي رهدو شيخ رشاد مركا عدانو أبترس كيس ينصب كيس قرالو ولابتو شيخ رشاد ابن معلم إسحاق ابن الشيخ الحاجي أويس ابن الفقيه علي ابن الفقيه عبد الله ابن الفقيه أحمد سيد مركز واركتان إلى شن أووي شن آباء ضد علماء وكابتر صدا وولي ودد شيوخ وفقهاءها لغب كاتك قرانيس أبيهس معلم إسحاق معلم أنبو مشهور كوها لغب كيسوها لكن من شيخ أبوها من شيخ عالم ومفتي أبوها قرآن كان أدب يقان أدب قرآن كو يقان سيدة أدوكتها هاي الشيخ نفتيسو حق آباها كسوكو حق هو يضنا علمك أبتر سنية وأوجس هو يدي دلي وحال لديه جري الشيخ حسن الشيخ حسن ابن الشيخ محمد ولما الشيخ محمد كاو حنكون مقلي تاريخ ديسا الشيخ محمد قيس هيا الأورنجري من مفتي أبوه ومنطقة مركا أوتشوغي لغي قانون معروف كأهابوه فشيخ رشاد حقي آبه iyo xaqi hooyadiiba kor iyo hoosba wuxuu ka soo jeedaa dad ahlu diin oo ahlu culumada ka soo jeeda culumadu waxa ugu horeysay ilmahooda ku barbaariyeen diinka waxa cilmi la bartana waa cilmiga diinka ugu fadhi badan wuxuu ugu horeeyay bilowday yaraantiisa oo bilaabay waxay ahayd quraanka waxa baray laba macallin oo walaalo ahaa oo ayaguna isu macallim ahaa waxa uu bilaabay aabihiis muallim isxaaq kadibna waa la ofsaday muallim isxaaq waxa quraankii u dhameystiray adeerkiis oo la dhihi jiray muallim daahir oo waliba isaguna arday u ahaa muallim isxaaq arday u ahaa baa quraanka u dhameystiray labada macallin marka walaalaha وأيوب اسمه معلمين تاها معلم كرنا وأبيه هي معلم إسحاق معلم ككرنا معلم ظاهر ولا لا هايين أشقاء ولبا أي قرآن كبري المهد ضد حفاظه دالين يريان تهرب قرآنك ويحفظيان قرآنك بركو برتينا وحو قالي أن تعليمتي سيبو باللابي حقي اسكولدي iyo tacliimtii kale diiniga ahayd tacliimtii diiniga ahayd kulli wadanka Soomaaliya ayuu ka bilaabay shuyuukhdiisu iska badanayeen laakiin hadda waxaan ka magacaabi karaa laba sheekh oo mashhuur ah oo dadka Soomaalida ay yaqaaneen sheekh waa sheekh Ali Suufi rahmatullahi alayhi sheekh Ali Suufi wuxuu marka mashhuur ku ahaa قرآنك إيه علوم تيسة قارهان تجويدك إيه قراءاتك مركز تجويدك وحو كبرتي وكقاتي شعري صوفي إنك الصولة الذي معلم أو قرآنك بصوبر طيبة أيضا نفته دا إلى هايين خلفيات أما إلمام وحل إلى أقوان أيولا هايين تجويدك والتلقين كيسي هرب قرآنك تجويد اللي قبري
haddana ka cilmi ahaan iyo culum ahaan shaacir suufi buu ka faa'iidaystay raxmatullaahi caleyh. waxaan kaloon ka tilmaami karaa culimmadiisii sheekh la oran jiray sheekh maxamed macalim xasan, sheekh mashhuura buu ahaa, macruuf ahaa, weliba waqti aada iyo aada u dhib badnayd, marxalo aada iyo aada u dhib badnayd ee dadka muslimiinta ahi ama soomaalida ahi ay soo mareen ayuu runtii joogay oo ilaahay ummadda ku badbaadiyey. sheekh maxamed macalin marka wuxuu mashhuur ku ahaa tafsiirka, nin caalima buu ahaa runtii oo dhinac kastoo la aado oo sheekh ku ahaa, laakiin wuxuu ku caanbaxay soomaaliya tafsiirkay ahayd. sheekhaasoo marka tafsiirka ayuu ka qaatay. sheekh irshaad markii uu tacliimtan iskuullada tacliimta la yihahda tacliim alcaam secondariga markuu ka baxay wadanka uu ka tegey, wuxuu tegey sacuudi carabiya. sacuudi carabiya uu jaamacad ka galay riyaad ku taalla. jaamacadda takhasuskiisu waxay ahayd culumtan la yidhaahdo sayniska, weliba gaar ahaan wuxuu aada iyo aada ugu takhasusay waxaan la yidhaahdo shaybaarka ama laboratoriga la yidhaahdo laabka unbuu aada ugu takhasusay. culummadii marka halkaa joogtay sacuudi carabiya joogtay, culummadii oon casrigan haddii la yidhahdo ka magacawnayd ayuu haddana xerna u noqdo cilmigana ka qaatay. isagoo duruustiisaan kala wata ayuu haddana dhinaca kale wuxuu ka waday waxbarashadii kaleo diiniga ahayd. culummada oo cilmiga ka qaata sacuudi carabiya waxaa ka mida sheekh la yihahdo sheekh cabdilcasiis bin baaz, waa macruuf caalamka islaamka o dhan baa laga wada yaqaanaa, oo waliba muftigii sacuudiga ahaa. culummada kaloo ka qaatay waxaa ka mida sheekh la dhihi jiray cabdalla ibni jibrayn oo isaguna culummada waaweyn oo muftiinta ah oo sacuudiga ka mida, iyo culummo badan oo kale. markuu jaamacadda ka baxay isla wadanka sacuudiga ah isbitaal weyn oo ku yaala buu ka shaqayn jiray. dabadeedna wuxuu u wareegay dhinacan reer galbeedka, gaar ahaan wadankan canada unbuu ku noolaa ilaa iyo waxaan u malaynayaa canada aaditaankii uu aaday waxay ahayd 85 aakhirkeeda 86 meelahaas bay ahayd, 86 bay ahayd aan malanay 86 aakhirkeedii ilaa 87 inay ahayd ma filaya. sacuudigu ka tegay xaggu galay, adigu taqriiban geeridiisii waxaan u malanaya inay ahayd 2014 miyay ahayd meelahaas inay ahayd 13 hadda ima saxna, inkastoon goobjoog ahaa uu ku dhintay sacuudi carabiya. waa u tegi doonaa haddii ilaah yiraahdo ilaa muddada inta ka dhaxaysa. deegaankiisu wuxuu ahaa canada. nashaadkii marka uu dacwada ku lahaana macruuf bay ahayd. hadda canada iyo maraykan iyo yurub gaar ahaan aad baa looga yaqaanay. cajalaad badan baa laga duubay, muxaadaraad badan buu lahaa, mu'tamaraad badan baa maaragtay muxuu ahaa ayuu ka qaybgeli jiray oo wadamada laga sameeyo. arrintaasi waxaan u malaynayaa dadku aada iyo aad inay uga wada dheragsan yihiin. run ahaantii yaryaraantiisii daaci buu ahaa. waqtiga uu dhiganayay ku jiray ardayga ahaa secondariga iyo uu ku jiray soomaaliya, waqti waxay ahayd runtii soomaalida ay mixno soo martay. waqtigii ay dowladdii askartu ay xukumaysay ay wadanka hayeen bay ahayd, oo madaxweynihii hore genaraal maxamed siyaad barre oo madaxda u ahaa. waqtigaas waxaa jirtay fidno weyn oo runtii dhacday oo ahayd nimanka askartaahi maadaama iyagu ay dee aqoontooda iyo thaqaafadooda iyo ruushka iyo halka ay kusoo tababarteen, fikraddii shuuciga ahayd ee ilxaadiga ahayd ee ilaah diidnimada ahayd bay soo qaateen, ayadii bay ku dabaqeen marka wadankii. qisadii macruufka ahayd oo culummada lagu laayay waa la garanayaa oo lasoo maray, wax badan baa lasoo maray. cadaadis badan oo waxaa jiray marka xagga diiniga xaggiisa iyo ummadda caqiidadeedii runtii kasoo kaga yimid fikraddaas ilxaadiga ah. ligaayad iskuulladaba lagu dhigi jiray ilaah ma jiro,
laa ilaaha walxayaatu maadda ilaah ma jiro soomaaliya ilaah ma jiro noloshu waxaa weeyaan un maadada on keliya oo waxyaalaha diinkaaba laga dhigi jiray waxyaala iska khuraafaadahoo afyooni shucuub lagu magacaabo mukhaadaraadka shucuubta lagu takhdiiriyo weey baa diinka dhan baa loo haystay waqtigaa oo sidaas ah oo haddii ardadii iyo dadkii muthaqafiinta ahaa iyo wixii oo idil lagala dirirayo oo dowladdu isugu geysay awoodoodii oo idil si ay fikradda ilxaadiga ah ee ilaah diidnimada ah ee shuuciyada ummadda loogu beero bay awoodoodii oo dhan isugu geysay iyo tacliimtii siyaasatu tacliimba taas bay ahayd iyadoo sidaasoo weliba uu arday yahay oo nin dhallinyara uu yahay oo marxaladii maaragtay muxuu aha uu ku jiro thanawi cadaadis badanna uu jiro oo qofkii xataa aathaar diiniya lagu arko si gooniyaba loo dabagelayo ayuu daaci ahaa fi hada alwaqti waxyaalaha uu isaga naftiisu iiga warramay waxaa ka mid ahaa iyadoo cadaadiskii markuu batay ayaanu warqad qoray buu yiri waxaana loo diray yiri sheekh cabdilcaziiz bin baaz oo raadiyaasha ka maqli jiray iyadoo sheekha iftooyin la weydiiyo sacuudi carabiyaan ugu diray boostadaan u dhigay buu yiri waxaan keliya ka codsaday buu yiri sheekhow ii ducee duca keliya uu ka dalbanayay waxaan idhi buu yiri nin dhallinyaraa baan ahay marxalada oo secondaryan ku jiraa muslimna waan ahay wadanka iyagana sidaa iyo sidaa iyo sidaa baa ka jirta fikradda shuuciga ah ee si looga nabadgalo qof aniga da-daydaah oo kale uu uga nabadgalo diintiisa u ilaashada ay adag tahay waxaad ilaahay ii soo barisaa inuu ilaahay thabaat isiiyo igu sugo diinka sheekh waa ii soo jawaabay buu yidhi warqad aad u dheer oo duco ah sheekhuna aad buu u duco badnaa ayuu ii soo qoray buu warqadii iskama dhumin buu yiri waa xafidtuu yiri marka meel baan dhigtuu yiri nin aada u nashaad badanna waa ahaa nin aada ugu dadaala isagoo mararka qaarkood yuniformkii uu iskuulka uga yimid qaba ayuu iman jiray darsiga sheekh maxamed macalin u dhegeysan jiray nin aada fahma badanna wuu ahaa sheekha marka xertu masaajidka ugu weynaa masaajid weyn oo magaalada ku yaala muqdisho oo la yirahdo masaajidka maqaamka oo masaajidii markaa ku taalay magaalada masaajidkii ugu weynaa ahaa baa dadku uu ku akhri jiray dadku waa lasoo buuxi jiray masaajidka intaanba sheekhuba imaamba casarka horeba masaajidka dhammi waa buuxsami jiray markaabaa weliba dabadda in laga dhegeysan jiray iyo mikrofoonka baa igu maqaala ah ma soo gaarin aniga sheekhoo wax akhriyaya isagoo xabsi ku jira un baan soo gaaray marka aniga naftaydu iska daalibulcilmiyahoo xer ahoo masaajid ka soo baxay kale baan masaajidka soo agmaray hamiin marka anoo fiirinayo masaajidka qiyaasaya baa nin kaloon isnaqaanon darsiga isla dhegeysan jirno darsin kasoo wada baxna baa iga daba yimi maxaad meesha ka samaynaysaa buu igu yiri waxaana masaajidkan baan qiyaasayaa intuu la egyahay maxaad ka qiyaasaysaa buu yiri waxaa igu maqaalaa baan idhi markii sheekh maxamed macalin uu darsiga ka akhrin jiray inuu buuxsami jiro bannaanka laga dhegeysan jiray marka masaajid aad u weyn buu ahaa kuma naal qaada marka xertu way jeclaan jirtay intaanu sheekhu iman darsigii xalay oo kale qof ugu soo celiya sheekh maxamed wuxuu ahaan jiray ninkii darsiga sheekha ku soo celiya darsiga sheekha xalay akhriyay isagaa galabtii ugu soo celi jiray dadka galabta dambe oo haminkii la isugu imaanayo sheekh Rashaad raxmatullaahi calayh markii uu ka baxay secondary-ga wadankiina ay xaaladaasi ka taagan tahay uu ka tegay uu ka dhoofay wadanka si weliba aad iyo aad u dhib badan ayuu uga baxay oo looma ogolaan jirin dadka da'yarta ah ama dhalinyarada ama shaqaalaha ah baasaboor in la siiyo ay dibadda ku aadaan looma ogolaan jirin si marka adigu aad iyo aad u dhib badan oo arrimo badan oo rafaada uu maray laakiin ilaahay uun ka gudbiyo ka badbaadiyey tawakulkiisii sidiiba wuxuu ku galay wadanka sacuudi carabiya jaamacad buu galay markii ugu horeysay warqadii waa wataa wuu sheekhu ii soo qoray sheekheebaan ayaan u tegay oo ku ziyaartay yiri gurigiisii
warqadiyaan oo la soo baxo yiri way gartay hadiiba ninkii warqada ii soo diri jiray saaxiibu ducada iga dalbi jiray miyaa tahay buu yiri baan iri buu yiri sheekhay buu arday u noqday oo cilmiga ka xambaaray iyo culimo kale sheekhu majmuuca culamaa buu inta u bixiyey ayuu yiri ninkan ikhtibaara oo imtixaana mustawihiisa cilmiga iyo qaabka inuu gudbin karo way ikhtibaareen way u gudbiyeen waxay yiraahdeen wuu noqon karaa nin daaciya warqad khaas ah u qoray sheekhu waxaa jaariyada Soomaalida ee joogta Saudi Arabia inuu wax u akhrin karo sheekhu yahay kadib Canada markuu aaday wuxuu ii sheegay sheekhu waliba warqad ii tusay inuu warqad dawladda Canada u qoray Sheikh Abdul Aziz bin Baz Sheikh Abdul bin Baz waa macruuf caalamka oo dhan uu macruuf ka yahay marka warqad uu qoray dawladda Canada oo leeyahay shu'uunta dadka muslimiinta ah ee Canada jooga wax laga weydiin karaa Sheikh Maxamed Rashaad sida buu ahaa sheekhu dacwadiisa iyo juhuudiisa iyo maqasoonayn intuu hadda wadamada qarbiga ku noolaa waxyaalaha qariib uu qabtay oo juhuudiisa muuqata waxaa ka mid ahayd meel weyn ee kalaab ahayd oo lagu tunto khamrada lagu cabo oo magaala madaxda Canada Ottawa ku taala ayuu masaajid u bedelay masaajid weyn hadda lagu tukado mashhuur ah macruuf ah oo la yaqaano magaalada ku yaal juhuudiisa bay ka mid ahayd hadda muslimiintu uu gacanta ugu jiraa waa la gaday lacagtiisa oo dhan kulli la wada bixiyay marka taaba ka mid ahayd aafaartiisii sheekhu geeridiisii wuxuu ku dhintay wadanka Saudi Arabia ka horteed anoo jooga Maka degan 94 inay ahayd ma filay 95 meelahaas bay ahayd wasagoo umra ku yimid buu igu yimid Maka waan wada umraysana marka dawaafkii oo dhan intuu dawaafayay wuxuu ku ducaysanayay ilaahu dhul gaalaha igu dilin ilaahu dhul gaalaha igu dilin ducadiisu intaas u badnayd intuu dawaafayay ducadii ilaahay uu aqbalay ficlan soo xaajiyo soo xajiyay oo Carafa la joogo ayadoo xataa sababta sheekhu uu u dhintay aan la garanayn Carafa ayadoo la taagan yahay ku ruux baxay amalkii shaqadii lagu jiro muxrima soo xarman أنا دعادي من كذا وضع إلى هدول قال هاي ودلين وانجوه يعني نفتي إذا مالتها كما أنا ورقة بين إنه جوه لكن إنه إيمانه يورك إذا وانا أيي لو مركا وليبا مركا أي تهي وقت دي إفاضة إلا قصوا بحي لها مغرب كوحير كهر با تلفون وصولها تلفون دي بدكاء مركا وحال يويديي Sheikh Rashaad baa ku dhintay maanta ma hay war ma ka haysaa ma yabaan eri laakiin waa raadinaya markiiba baabuurkan saarnay baan ka degay laba isbitaal oo ku yaala mina ku dhex yaala laba isbitaal waaweyn oo marka labaduba iga horeeyaan ii dhow yihiin laamigana aan marka ku joognay labada dhinac ka xiga baan ku soo orday waa imid استعلم إمدي وويديي ما هيسا لبنان أو دخاتيرة وماشي استعلاماتك رسبشن كتاغن بانو إمي وويديي ولا إسود يسيو حال إيدي غريب حال إيغيري على قضاء دلالة هاي محوية هاي وورا الكيبان كويري واتشران بيرادنا الله نحرسته أنا ما إتوسي كرتان هذا اللي يقولي من الله يقول دري ويفري خاندي ثلاجة أو دميتو كجري مدحيسا السوحيقة
lugihiisuna xagga yaalaan ixraamkiibaa u xiran madaxa keliyaha u bannaan oo isagii oo sidiisii haddaa ruuxu ka dhacay waa ku soo noqday marka labadii dhakhtar markay i tuseen waxaan ku idhi xaaladdiisa maxaad iiga sheegi kartaa dhakhtarkii oo weliba dhakhtarkii khaaska ahaa baa ii jawaabo wuxuu igu yidhi wax aan kuu sheego ma garanayo waxaan keliya kuu sheegi karaa maanta iyo meeshaan ilaahay inuu u doortay bas intaa keliya baan kuu sheegi karaa runtii anigu markaas mutaahiran ku ahaa yani maadaamaan hadda yani janaasadiisii wixiisiina aan arkay xoogaa ta'ahartu laakiin markuu kelimada igu yidhi jawaabtaydii waxay noqotay alxamdu lilaahi calaa xusni alkhaatima intaa markuu kani yidhi dhakhtarkii kale wuxuu igu yidhi mumaridkii la joogay wuxuu ii sheegay aakhira kelima talafada biha kelimadii ugu dambaysuu ku hadlay shahaadat an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu llah marka maydkiisi mutaahir baan ku ahaayey jawaabteedii waxay noqotay alxamdu lilaahi calaa xusni alkhaatima alxamdu lilaahi calaa xusni alkhaatima lianna nabiya sala allahu alay wasalam yaquulu man kana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna aad baan ugu farxay wixii la yaab kale waxay ahayd de marka anagu waxaan ku jirnaa camal baa lagu jiraa carafa laga soo socdaa musdalifa loo soo socdaa jabaraadkii adagoo ninkii xamladii shiikhuu la socday waday baan ishelnay oo nin caraba ahaa telefoonaan ku wada hadalnay waxaan ku ballannay bal markii bari dhagax tuurka iyo waxyaalaha la dhammaysto oo acmaashii xoogaa la dhammaysto xoogaa naga futudaato inaan galno marka tajhiiskiisii annagu sidaasaan ku ballannay laakiin ballan iyo dardaaran uu ka tegay baa jira dhakhtarkiisiibuu wuxuu kula ballamay intuu noolaa waxyaalaha ayaga naftooda ka yaabiyo ka nixiibi ka mid isagoo noola la geeyey isbitaalka yani dhowr saacadood buu ku jiray yani ay tashkhiisin waayeen sheekha keliya oon in uu mawd iyo sakaraadkii haya mooyaane wax kale oo cudura hoos u socdaa sheekha hubuudki yani hoos buu u socdaa waxaa ugu maqaalaa waxaa isugu timid 17 dhakhtar aakhirkii ugu dambeysa wuxuu yidhi inta kale ha layga bixiyo hal dhakhtarkii oon istaalka dhakhtarka ka ah dhakhtarkii wuxuu kula dardaarmay beri salaada subax ama salaada ciidda ha laygula tukado janaasada xaramka dhakhtarku ma sheegin marka shibbuu iska yiri waa dhakhtarkan igu oranaya wax aan kuu sheego ma garanayo ilaa inaan ku iraahdo maanta iyo meeshaan baa ilaahay u doortay ficlan salaadii subax inagu de waa soconay dee xujaajaan ahayne annagoo markaa jabaraadkii tuurannay salaadii subaxna la tukaday jabratulcaqaba tuurannay welina mina aan ku dhex jirno ayaa yarkii waxaa isoo wacay muxuu ahaa xamlada waday wuxuu yidhi sheekhii hadda xarabka laga bixiyey janaasadiisii qubuuro heblo la yirahdo qubuuro macruuf ahaa sharaa'ic meel la yirahdo ku yaalay waa kala qananayn magaalada haddaad taqaano qubuuraha sharaa'ic waa sheekhii loo qaaday haddaad ka gaari karta ka gaar kuma gaarin marka macnuhu waa maxay waa dardaaranka uu la dardaarmay qoladii isbitaalkaa diyaarisay u diyaariyey bahalka la yidhahdo bambalaas xaramkii geysay lagu tukaday iga duugay markaas baa haddana waxay iisii noqotay farxad kale oo labaad raxmatullaahi calayhi inagana ilaahay khaatimada hanoo hagaaji ustaad marka dhowr su-aalood aan iga soo baxay meeshaas hadaan ku weydiiyo waxaa igu maqaalaa dadka qaar ay sheegayeen waa dadka qaar baa sheegaya wax confirm uma hayno ama saxa marka
carafa wuxuu dadkii baa buurtay wax saas maqlay maxaa ka jira dadka dadkii soo baxoodii dadna buurtay maya sheekhu wuxuu soo galay maka maalintii 6 bisha Dhulqa'da xujaaj timaado xujaajtii ugu dambeeyay ay ahaayeen sida badan Saudi Arabia ayada nidaamkooda maalinta 6aad xaaji waa inuu qof xaaji waa inuu maka jooga maaragta maalintii 6aad ugu dambeysay bay soo galeen wax xujaajuhu yimaada maalintaaba sheekhu umray ku yimaadeen umradii way guteen markay guteen dad safarna ku yimid horana umradii ka galay xoogaa uu yara xanuunsaday kulaalkii iyo wixii iyo xoogaa calooshay waxuu yar ka dareemay maalintii 7aad wuu fiicnaa maalintii 8aad waxaa la tegay Mina oo Mina umbaa xujaydi u guuraan habeenka 9aad Mina umbaa lagu hoydaa maalinta 8aad oo Mina uu joogo ayaa sheekha xoogaa waxaa ku dhacay tabaryari badan tabaryari subaxa carafa la aadayo baabuurka waa la qaaday waa la saaray sheekha waa la fuuliyay marka qoladii waday waxay yiraahdeen sheekhan isbitaalku geyno wuxuu yiri maya carafa igeeya markaad carafa igeysaan wixii ka dambeeya saad rabtaan igu taliya laakiin carafa la igeey baskii waa la saaray carafa la geeyay xujaydii markii la dajiyay sheekha xaaladiisina ay tabaryaridu sii ziyaadayso ba ambulance loogu yeeray isbitaalka waxa la geeyo carafa ku dhex yaala isbitaalku ku marka ay ku dhintay buurasho iyo midna ma yahay waayahay su'aasha inoogu dambaysa ustaad waxay tahay marka ilaahay u naxariista waqtigu dhashay intuu markuu dhimanay jiray ma noo sheegi kartaa wallahi bidabti ma hayo da'diisa waagu dhashay laakiin تقريبا أنا هذا دائدو لحدنا من بان كل دواهي وحو يقوينا مركو لحسنو وشيخو يقوينا يعني دعهان مركو حنكو قياسي كرا هدو كلا هدو سو قاري لها تضباطا إنو نولي قارين مركا أدوبو مركز أول لمن أيوه دو حلقة شوغا أدوبو سغاشن يوف هاي لبدي كونيو إيو أفري طبانكي لها سبعي هذا ملايين أياه marka adigu 60 wax yar baa ugu darmay markaas sheekh annaga faa'iido inoogu leedahay oo culimada taariikhdooda iyo juhuudooda iyo dadaalkooda annaga ku intifaacina iyada waxaynu naga baahan yihiin waxay aan soo kasbadeen way la kulmeen marka waan u ducaynaynaa waxaan leenahay raximahumullah ilaahay ha u naxariisto qabrigoodana allah wasiiyo يعني أمان هذا إنه أمانة إذا ما أهين قصدك وحيقة أها بل إن يعني أيها جهود دي يددال كودي إيو نفع جاي أمد أولهايين إيو إنه أنت دب خصوصا وقت جي مركان الضعفي ولا جايبو إن دد بلن أو شيء خاص ودح جوجي إنه واحد بدن كفائدي سن أنا دب أنا أنت إسوء أنا نو aanu isniraahno alla ilaahay inta hadda waqtiga inaga dhiman haabashada way noo egtahay haatan dabadeed oo marka cilmigi loo soo jeesto culumma hadda way joogaan alxamdulilah jazaahumullahu khayran laakiin sida kuwii hore ay u tageen bay ayaguna raadkoodii bay ku joogaan inagu marka dowrka yagu muxuu ahaan doonaa yaa bedelaya naftayada inaanu ku qancino inaan bedelno iyaga culimada naga tagay inaanu bedelkoodii anagu buuxino oon cilmigii baranno oon cilmigii guntiga u xiranno baan nala gudboon intaasaan marka walaalaha xusuusin lahaa naftayda iyo nafta walaalahaba barakallahu fiikum jazakumullah